جامعة مقدشو مرة لبعت وهرينا وانو شيغي ماشان وليبا واكا شيغي جامعة دان وحي كنتي مدن تهي مر والبا إن لحسو مر والبا إن لغو أمانو هريال نمديدي يجيسي نمديدي iyo xilligaas isbedelka waxa la yiraahdo waxa sameeya dad yar marka jaamacadda Muqdisho inay jaamacadu wada jiraan runtana way wada leeyihiin laakiin waxyaabaha ay ku bedelan tahay iyada kaga duwan tahay jaamacadaha waxay bedeshay trajectory nolosha markaas ay u socotay oo dhan waxay bedeshay perception ka jiray ayay bedeshay marka waxaan u baahanahay dalkeena in aan si midaysan uga shaqeyno inaan aqoonteena u bedelno practical inaan u bedelno suuqeena inaan waafajino horumarka inaan ka wada shaqeyno dhammaan tanina waa qayb weyn oo ka mid ah horumarka jaamacadaha private iyo public waa sax sida la sheegay dawladda Soomaaliyeed way ku faanaysaa waan isugu mid waynu koraynaa tabarteenu maalin bay soo badanaysaa oo soo ficnaanaynaa waxyaabihii la soo qadimay iyo talooyinkii la soo jeediyey runtii waa talooyin wanaagsan laakiin haddana la joogno wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare waxay partner la tahay oo la shaqeysaa 25 jaamacadood oo programyada laga fuliyaa marka waxaan rajeynaynaa inay sii xoogsato oo sii badato insha Allah taala aad iyo aad baad mahadsantihiin wixii aqoon ahaa iyo wixii talo ahaa dad aniga igaga habboon baa idin siiyey anuu keliya waxaan meeshaan u joogaa keliya inaan idin idhaahdo hambalyo inaan ammaano dhammaan intii kasoo qayb qaadatay iyo inaan sheego in waddankaan idin baahan yahay rajadiisa inaad tihiin aqoontuna sideedaba meeshaan u soconno dalkaan u socdo amnigaan aan hadda amniga leenahay duruufaha keenay laakiin anaga siyaasadda xukuumadda dan qaran asal ahaan waxa weeye waxay ku taagan tahay in la investment lagu sameeyo qofka aqoonta marka number 1 noqon doonta oo 1 iyo 2 iyo 3 ba noqon doonta maalinta ka soo jeedsano amniga oo si ku meel gaarade hadda insha Allah aan rajeynayno inuu waddanka ilaahay uu nabad inooga dhigo meesha ay Soomaaliya u socoto oo aan rabno Soomaaliya cidda naga dambaysa inay la aado oo u kaxayso waa waxbarashada furaha horumarka waxbarashadu inay noqoto 1 2 3 4 priorities meeshaas ayaa dhow bulsho haddii la rabo in la bedelo haddii la rabo inay horkacdo marka aqoonta asala ayaday tahay investment lagu sameeyo ayaday tahay waxaan hayno dhan in la geliyo si aynu u jirno laakiin inaynu xoolo badan abuurno iyo inaynu maxaan ku dhahaa inuu lacag badan banaanka dhigano wax weyn ay tarayso mala taa waa la soo arkay aad baad mahadsantihiin hambaliya markale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu